السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo maxamuud casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad roles waa door yani qof walba doorku waxa uu ka qaadanayo ama xilka iyo poska uu ku leeyahay yes for example parents have important roles in their children's lives waalidku door muhiim ah ay ka qaataan nolosha carruurtooda yes ereyga labaad solely waa only yes for example the success was solely his hard work guushan waxay ku tamaatay dadaalkiisa oo kaliya only ba isku macno yihiin yes ereyga saddexaad teased waxaa la yiraahdaa qofka markuu kugu kaftamo kugu cayaaro ku qojqojayo ayaa la yiraahdaa teased waxay isku macno noqonayaan mocked yes waa inuu qofka yani they are making fun of you yes good for example the children teased each other at school carruurta iskuulka gudihiisa ayay isku aflagaadeenayeen isku cayaarayeen isku way cayaareen way kaftamayeen they are joking on each other ereyga afraad twee waxaa la yiraahdaa wax aad u qurux badan something that is very sentimental or that's very cute yes good ereyga shanaad ammunition waxaa la yiraahdaa rasaas qoriga rasaas ayuu leeyahay rasaastaas ayaa la yiraahdaa ammunition rasaas waxaa kaloo la yiraahdaa bullets yes the soldiers ran out of ammunition ciidankii rasaasta ayaa ka dhamaatay ereyga lixaad atrocity waa xasuuq in yani qofka la xasuuqo inta qaasatan markii dagaalka lagu jiro during wars in yani naxariis darro iyo xasuuq iyo adigu violent acts dadka lagu dhaaq ayaa la yiraahdaa atrocities yes the war left behind many atrocities dagaalkii wuxuu ka tagay xasuuq aad u tiro badan ereyga toddobaad beads waa bahalo yaryar oo sida kubada u samaysan ama waa sida tusbixi oo kale inta badan yani tusbax laftirkiisa baasha laga sameeyo waxaa la yiraahdaa beads tusbax bas ma ahan mar qaar waxaa laga sameeyaa necklace oo katinka qoorta lagu xirto mar qaar xitaa waxaa laga sameeyaa bracelet yani jijinta gacanta lagu xirto beads waxaa kaloo laga sameeyaa bahal yar oo waist caloosha lagu xirto waist beads baa la yiraahdaa yes gabdhaha inta badan xirto si ay miisaankooda la socdaan quruxna way u xirtaan ereyga sideedaad blizzards waa dabaylo barafot yes dabaylo barafot ayaa la yiraahdaa blizzards waxaa kaloo dhigi kartaa snow storms yes ereyga sagaalaad cavalry waa ciidamada fardooleyda ah yes ciidamada fardooleyda ayaa la yiraahdaa cavalry yes the cavalry arrived to support the army ciidamadii fardooleyda ahaa waxay u yimaadeen si u caawiyaan ciidanka ciidamadu marka waxay isugu jiraan fardooley ciidamada lugta oo la yiraahdo infantry iyo ciidamada hubabka kala isticmaal yes marka cavalry waa ciidamada lugta ciidamada xaara fardaha ciidamada lugta waxaa la yiraahdaa infantry ama foot soldiers taas ka dhigi karta yes ensued waxaa waxa kani waxay u dhaceen ama waxay natiijo ka yihiin wax kale this thing happened as a result of something else yes waxa kani waxay u dhaceen they happened as a result of something else wax kale sababtooda ayay u dhaceen yes ama waxay raacsanayeen wax kale followed yes for example silence ensued when the teacher entered the room silence ensued aamusnaan iyo shub ayaa dhacday markii uu macalinka kalaaska soo galay aamusnaantan waxay ku xigtay soo galida macalinka it happened after the teacher came into the class yes qaabka ayaa loo isticmaalaa cashkeentas ayuu ka yahay keep learning and have a good day